كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada channelka YouTube-ka Aftahan Production oo channel xaqiiqada iftiimiya wixii jira shaaca ka qaada qodobada barnaamijka aad ku daawan doonto xilligan waxa kamid ah shirkii madasha wada tashiga saddexda madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweynaha dowladda dhexe warburtiyad bay soo wadaan warburtiyadkaas aan rabaa markii aan sii kashifo oo aan idinla sii wadaago qodobo muhiim ah oo warburtiyadkaasi ay doonayaan inay ku soo bandhigaan marka koowaad waxa lagu heshiiyey muddo kororsi hal sano ah oo la siiyey madaxda koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug madaxweynahana waxay u saxiixeen doorashadii uu rabay ee qof iyo cod iyo guddigii doorasho uu isagu soo qoranayo ama qortay ama diyaarsaday intaa kadib waxaa kaloo lagu heshiiyey doorasho golo deegaan in la qaban doono waxaan sii sheegi doonaa waqtiga doorashada golaha deegaanka ay ku ballameen in laga qabto sida iyagu hadalka u dhigayaan Soomaaliya bishee la qabanaya sanadkee la qaban doonaa madaxda maamulada madaxweynayaasha maamul goboleedyada doorashada madaxweyne maamul goboleed kasta hal mar bay dhacaysaa bishee la qabanaya doorashada madaxweynaha maamul goboleedyada sanadkee la qaban doonaa barnaamijka kugu soo gudbinaya doorashada madaxweynaha dowladda dhexe ma laga hadlay waqtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha dowladda dhexe yaa go'aaminaya ma muddaxileedka keliya la sugaya mise waxaa jira dad iskale go'aanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo aan wada ognahay muddaxileedka xasan sheekh in ay ku eg tahay 15 bisha shanaad 2026 ayadana waa sii kashifi doonaa soo dhawaada barnaamijkan waa kooban yahay warburtiyadka inta aan la gaarin ayaan rabaa in aad bulshada iga gaarsiisaan videoga like saara like-ta dhammaan qof kastoo daawanaya barnaamijka videoga like saara dhammaantiin soo dhawaada warburtiyad baa ka soo socda shirkii muqdisho saddexdii madaxweyne maamul goboleed calaashaan jubbaland iyo puntland oo maqan ayaa warburtiyadkana soo saari doonaa warburtiyadkaasi marka nuxurkiisa ayaan idila wadaagayaa horta waxaa lagu heshiiyey muddo kororsi hal saac ah oo la siinayo ama la siiyey madaxda maamulada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug lafta garan qoorqoor iyo cali guudlaawe hal sana la siiyey muddo xileedkoodu wuxuu ka bilaabanayaa November 2024 waxay sii joogi doonaan November 2025 muddo kororsigay wada qaateen saddexdoodii baydhabo la aadi doonaa lafta garan qoorqoor usmareebo la aadi doonaa cali guudlaawe jawhar la aadi doonaa hal sano oo muddo kordhin ah meel dhiidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa loo saxiixay sida aan dhowr jeer la sheegay kulli sida hadalka u dhigay unbay wax u dhaceen guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed xasan sheekh qoranaya cid kale oo la faragelinaysa ma jirto guddi doorasho isagu uu wato ayaa ka howlgeli doona doorashada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xasan waa siduu rabay waxaa kaloo lagu heshiiyey doorashada madaxweynaha iyo cidda go'aanka iskale xasan wuxuu yidhi maadaama muddaxileedkaygu hadda ay sanad iyo dhowr bilood ka dhiman tahay oo ilaa iyo markii labada bilood oo sanadkan lagu sii daro adigu waa sanad iyo 8 bilood sanad iyo 7 bilood baas wuxuu yiri doorashada madaxweynaha waqti badan yaa la gelin ana aqaan sida u jiheeyeen horta guddiga doorashada wax dooda ka keenina waayay heer oo saxiixeen guddiga doorasho madaxweyne maamul goboleed oo ku haysta ma jiro saddexdooda lafta garan cali guudlaawe iyo qoorqoor madaxweyne xasan sheekh maxamuud yiraahdeen guddiga doorasho sida doonto u qoro dadka doonto keenso magaca federaalka iyo magaca maamul goboleedyada iyaga ku shaqeynaya xafladda caawana way imaan doonaan saddexda inta kadib wuxuu yiri xildhibaanada maadaama kaligay hagi karin dad badanna ay aniga iga soo horjeedaan oo madaxdii jubbaland iyo puntland iyo laygu dhagan yahay oo musharaxiintii ninkii shariif ahaana cirka laga soo riday oo muqdishadii uu la wareegay xildhibaano dhowra ila riixa oo ila casuuma xildhibaanada caawana ila tashkiilaya oo waxaad igala dhaadhicisaan in ay sharcigan aad idinku ii saxiixdeen ayaguna inay ii saxiixaan lafta garan wuxuu bilaabay inuu telefoon ka waco xildhibaanadii koonfur galbeed qoorqoor wuxuu bilaabay kuwii galmudug cali guudlaawe wuxuu bilaabay kuwii hirshabeelle
xasan dhinaciisu ka wadaa ayaguna dhinacooday ka wadaan xafladana waa la wada imaanaya laga yaabay barnaamijkeena daawanayso xafladii soo dhamaatay wuxuu yiri marka sida igu saxiixdeen xildhibaanadu inay igu saxiixaan igala qayb galaan oo xildhibaanada aanu isla galno waa la aqbalay waa la ogolaaday saasaan xafladda lagu diyaarinayaa waa laga yaabaa muuqaalkan inaad daawato xafladda cashada kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo kororsiga uu hadda madaxda maamulada siiyey asagaba waa ogyahay inaysan shaqaynayn laakiin dan buu ka lahaa nimankan hadalkayga si fiican u dhegeyso waa ogyahay xasan inaan la aqbalayn qoorqoor hal sano galmudug ha iska joogo waa ogyahay in aan cali guudlaawe cali isbaaro inaan la ogolaanayn inuu hirshabeelle sanad hadda dhimada uu sii hogaamiyo lafta garena waa la ogyahay in aan laga aqbalayn inuu baydhabo iska sii joogo waa ogyahay xasan sheekata laakiin dan kaliyuu ka leeyahay dantaas waa inuu saxiixaas ka helaa guddigaasi doorasho xildhibaanadu ay iyaguna ay xildhibaanada kala qayb galaan xildhibaanada madaxtooyadu dee xildhibaano badan ma haysato marka lafta gareena oo maamulkiisa xildhibaanada ugu badan haysta haddii uu hawsha la galo qoorqoor hadduu hawsha la galo haddii cali gudaawo la galo xoogaa xildhibaano badan ay helayaan marka xasan sheekh marka dantaasuu ka leeyahay asagaana berito dhabar jabi doona saddexdooda bal maanta meel iga qora waqtigan aan kula hadlayo meel iga qora xasan asagaa dhabar jabinaya qoorqoor cali guudlaawo iyo lafta gareen ayaguna asagay ku maqan yihiin laakiin hadda danta waxaa wata madaxweyne xasan sheekh isagaa dantan iyo hawshan hadda socota dan weyn baa isaga ugu jirta intaa kadib waxaa loo gudagalay 2026 madaxweynuhu see la yeelayaa horta wuxuu yiri hadda haddaan dhaho anna muddo kordhinaan ku darsaday ama sanad ama 2 sano waa laygu kaca kacdoonaa bilaabana marka waa aamusa wuri aniga muddo kordhin ma rabaan leeyahay waa jilin mugt ma rabaan leeyahay laakiin inay doorasho madaxweyne dhacayso yaa iskale go-aankaas horena waan idinkugu sheegay soo maha guddiga doorashada go-aaminaya laakiin aniga muddo kordhin ma rabo dhahay balse aad ii faham wuxuu yiri guddiga doorashada soo qortay ayaa go-aaminaya waqtiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya la dooranayo anigu se madaxweyne ahay muddo kordhin ma rabo macnaheedu maxaa waaye guddiga doorasho hadday xildhibaanadu ansixiyaan waxay leeyihiin suurtagal maaha 2026 in doorasho madaxweyne ay dhacdo sidee ku dhihi karaan hadda ku sheegayaa si fiican dhegeyso doorashada golaha deegaanka waxay bilaaban doontaa bisha 6aad 2025 bisha Juun 2025 doorashada golaha deegaanka dhacaysa bisha Juun bartamaha sanadka 2025 Soomaaliya bisha waa 12 sanadku waa 12 bilood bisha 6aad waa bartamaha sanadka haddii bartamaha sanadka la yiraahdo doorasho golaha deegaanka la gelaya waqtiga dhacaya mana ku filno inay dhacdo doorasho madaxweyne 2026 bisha 6 waa wax aad ugu yarwaay marka waa fikiraya hadhow guddiga doorashada waxay leeyihiin waqtiga ugu yar naguma filna sidaa darteed doorashada madaxweynaha ma dhici karto 2026 waxaanu ka dhignay 2028 muddo kororsigu halkaas u noqonaa waayahay madaxweynaha maamul goboleedkana waxaa la dooran doonaa bisha November 2025 halkii sano waaye Soomaa wixii ku soo kordhaan arkaynaa warburtiyeedkan halkan u fadhiya daqiiqad walba hadduu soo dhaco halkan ayaan kaaga soo gudbi doonaa barnaamijkan midnimada inta kulmi doono waa balwaan idin leh meel kasta waa joogtaan nabadgelyo